dal walba dadkiisa ayaa wax ka dhigta mana sugayaan in dadka loo shisheeye dalkooda wax ka dhigaan. Soomaaliya oo leh ilo badan oo wax soo saar ah sida kalluumeysiga, xoolo la dhaqdo iyo beeraha, ma jiro wax soo saar weyn tan iyo burburkii 1991 ee dowladii dhexe haba ugu darnaatee wax soo saarka beeraha. Kanaalka arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha ka faallooda ee galganacsi ayaa u korgalay hoos u dhaca ku yimid wax soo saarka dalagyada kala duwan ee dalka, gaar ahaan qudaarta, waxaana ku soo ogaanay in dalka wax soo saar leeyahay balse dadkiisa aysan u soo jeedin kor u qaadida wax soo saarka dalka. U soo dhawaada galganacsi. mid ka mid ah ganacsatada qudaarta oo diiday magaciisa iyo wejigiisa inaan u adeegsano warbaahinta oo noo waramay ayaa sheegay in dalka uu nimcaysan yahay lagana faa'iideysan karo, dhalinyaradana ugu baaqay inay ka faa'iideystaan kheyraadka ceegaaga dhulkooda intii ay tahriibi lahaayeen oo ay kurbeyn lahaayeen waalidiintooda. ilaah wadankeena ka bixi dhalinyarteena bilaash waa cararaya haddii inaad ka ganacsato isku daydo waa ka mari kartaa. wax walba waa ina aadi horta dadaalaa u gaara ina dadaasho weey, laakiin ina iska orado waa aad loo fiican yahay ina wado hooyada kurbayso waa lagu soo tacabeelay juhdi lagu bixi, waxbarashadaada juhdi lagu bixi, caafimaadkaada juhdi lagu bixi, hooyo dhibay ka soo martay aaba dhibo ka soo maray, marka adina ina iska cararto waa wax aad loo fiican yahay. hadaa isku daydi adoo daayar ina wadankaada ka mari dhaliso ilaahay talada saarto wadankaada waa ka mari dhali kartaa. wadankaana u jeedin nimco ilaahay waa siiyey, laakiin Soomaali dhibaatada haysato waa isfaami daro, laakiin waxa isku dayda waqti walbo ina dalkaada ku kalsoonaato. waa u jeedaa nimcadan ilaahay ku dhaarsiiyay, nimcada maas soo saamare wadan laga helo oo saan loo hel aad u yartay. waxaan waa camba arag wadamada qaar ma ka helays, waxaan waa moos bambeel ma helay. marka waxaan ku buraajinaa walaalahay Soomaaliyeed qaasatan dhalinyarta inay iska daayaan tahriibka iyo balaayada u ordayaan dalkooda inay ka mari dhaliyaan. والسلام عليكم ورحمة الله. dhanka kale suuqyada qudaarta ee magaalada Muqdisho ayaa laga dareemayaa bedel dhanka qiimaha qudaarta ah, waxaana u waramay galganacsi Cumar Cusmaan Cabduqaadir oo kamid ah ganacsatada qudaarta ee Muqdisho. yaana horta laba bil ka waxa la gadaa hal door barkii lageed hadda waxa ku soo qaadnaa laba door laba baraan gadanaa. liinta awil korba liintan iidan sidaas oo kale suuq 8 kuna la gaday laakiin saada zoora la gadaa wax walba isbedel ku yimaadeen. cambaha ku kan noqdo gaashana cambaha liintan isku baaxay wada ahaayeen iidan hal mar isku bedeleen nusay naqdeen. koostada wax walba isbedel ku yimaadeen. koostada maaski waxa ku soo qaaday 15 kun 18 kun had 30 kun ku soo qaadnaa. babaagana sidaas oo kale baay jannada lagu soo qaadaa. saxarada jirto oo isku toosan 300 400 la gadaa dalka milyan la gadaa. marka saxaradaas oo kale ma ku jirto saxaradaas oo kale waxa ku jirto adi 150 am 150 babaay amala ku jirto oo baacayood kala duwan, qaar hal door ku jiraan, qaar nus ku jiraan, qaar oo isku dhaxwadaayo.